wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin hor leh oo la xiriirta halista cudurka safmarka ah ee corona iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Baaritaano ay sameysay wasaaradda maalintii shalay ayaa waxaa laga helay 44 ruux oo isugu jira rag iyo dumar. Tirada la baaray shantii maalmood ee ugu dambeysay ee cudurka safmarka corona ayaa gaaraya 2432 ruux, waxaana baaritaan kadib laga helay 44 ruux. Dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan deegaanada Somaliland. 34 ruux waa lab, 10 ka mid ah waa dhidig. Waxaa ka bogsatay 19 ruux, waxaa dhintay 2 ruux. Tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ee Soomaaliya waa 3941, halka bogsashada guud ee Soomaaliya ay gaarayso 3185, halka dhimashada guud ee Soomaaliya ay marayso 104. Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka u saameeyay cudurka safmarka corona, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in cudurka corona iminka uu ka dabargo'ayo Soomaaliya, balse arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dowladaba ay sheegtay inuu sii yaraanayo, balse deegaanada Somaliland iyo Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo warinayay in cudurka corona uu ku soo laba kacleeyay. Cudurkan oo loo muuqday mid ka dabargo'aya caalamka ayaa waxa wadamada sida aadka u saameeyay ay ku jirto Soomaaliya, gaar ahaan wadamada Yurub, gaar ahaan UK, Faransiiska, Jarmalka, Mareykanka, Spain iyo wadamo kale oo ka mid ah, kuwaas oo horey u sheegay inuu ka dabargo'ayo, balse maalinba maalinta ka dambeysa ayaa caafimaadlayaasha wadamadaasi ay sheegaan in maalintiiba ay soo ridanayaan dad kor u dhaafaya 500 oo ruux. Haddaba yaan war idinku daalin, waxaa naga xasuusina in channelka TV-ga Kasmaal aad noo saartaan subscribe, isla markaana gambaleelka aad taabataan si wararkii ugu dambeeyeen halkan soo gelina aad u daawataan. Ismaaciil Abuukar Bulshaawi, Kasmaal TV, Muqdisho.